الصومال من أيام نسمع رقم اندهشت. Soomaaliya oo ayaan dhaweyd aan maqlaynay iyadoo loo gurmanayo waxa ay dhoofisaa 2 milyan oo neef oo lo ah, 2 milyan oo neef oo ido iyo ari ah, iyo 97,000 oo neef oo geel ah, kuwaas oo loo dhoofiyo dalalka Carbeed. الصومال من أيام نسمع رقم اندهشت، يصدروا مليونين تاع راس بقر ومليونين ما بين معز والغنم والغنم و97,000 راس تاع إبل للغولف chaque année. 2 millions de vaches, 2 millions de brebis de chèvres et 97,000 de chameaux exportables dans les pays du Golfe. C'est pas normal. macquul maahan waddankan Algeria ee aan haysan hilib uu dhoofiyo, harag uu dhoofiyo iyo wax ku filan oo ay dadkiisu cunaan. maya macquul maahan. suurtagal ma ahan inaan wax walba dibadda ka soo iibsanno. bal eeg, waa Soomaaliya. haddaan dhihi lahayn Jarmal caadi ayay ahaan lahayd, haddaan oran lahayn Faransiis waxba igama dhibteen. laakiin Soomaaliya oo aan aragnay halka aan kala joogno, waxba kama nusqaaminayno, mana iska hormarinayno, hoosteennana kama eegayno. laakiin sidee ku dhici kartaa arrintaas؟ يستحيل. يعني الصومال ما كون قلت ألمانيا قال بزاف علينا، قلت فرنسا قال الصومال رانا كيف احنا مع بعضهم، ما قصر ما نقص منهم، ما اكثر منا، ما رانا تحت منا. كيف هما يصدروا واحنا لازمنا نجيبوا؟ in iyagana ay wax dhoofiyaan annagana aan wax soo iibsanno, arrintaasi suurtagal ma ahan. mana naga dhul weyna, mana naga cimilo fiicna, mana naga muruqmaal badna. sidee u dhici kartaa؟ waxaa loo baahan yahay inaan maskaxdeennu ay shaqayso. waxaa loo baahan yahay inaan dhinac walba u bedelno qaabka maskaxdeennu u fikirayso. مش معقول. يعني من المساحة الأرضية ولا من المناخ ولا من اليد العامله موارد بشريه ولا من الموقع الجغرافي. انا نظن بلي لازم نغيروا اذهان تاعنا ونغيروا اسلوب تاعنا على كل المستويات.